السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan afarta albaab ee ugu badan ee qofka macsida ay ka soo gasho. inaad noqoto qof wanaagsan, meel kasta ku fiican, wax kasta xifdin kara, agtiisa laga helo degenaansho, farxad, qoraahyo cajiib ah. waxa ay kaaga xiran tahay ka tegista macaasida xunxun. si aad uga tagto ayna kugu suuro gasho, waxaad iska xirtaa afarta albaab oo ay badanaa macsidu ka soo gasho qofka bini'aadanka. albaabka koowaad, milicsiga iyo eegmada la eego waxyaabaha ay baxarimay. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها، كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا ذرف يقلبه، في أعين العين موقوف على الخضر. حوادث إذ ماشي أي كبلوضا وإيكمدا دبكا أركيسو وين كان waxa uu ka bilowday dambil yar. imise eegma ayaa qof dhaawacday oo qalbigiisa gaartay. adduunku inta uu daraf ama eegma uu leeyahay oo wax eegayo, weliba indhihiisa la raacraacayo meel kasta, waa mid ku taagan khatar, kamana badbaadayo. wax kastoo ishu qabanayso hanan maysid, hees rafaadin oo xakamay araggaaga, maxaa yeelay dhibka aad ka dhaxlayso ayaa ka badan raaxada aad ka helayso milicsiga iyo eegmada. albaabka labaad waa fikirka. fikirada ku soo dhacaya qalbigaaga ha noqdaan kuwa xadidan. inta aad ku fakiri lahayd waxyaabo aadan gaarayn, ku fakir ceebaha nafsadaada, nolosha dambe ee aakhiro, hankaaga aqooneed sida aad kor ugu qaadi lahayd. balse ma aha in aad nafsadaada ku daaliso waxyaabo khiyaaliya oo ay qoreen ama ay diyaariyeen iyo muuqaalo ku dhisan khiyaaliga dad kula doonaya burburka nafsadaada. albaabka saddexaad, qoraahyada ka soo baxay afkaaga xakamay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu, walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuhu. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: ma toosayo addoonka iimaankiisa ilaa uu ka tooso qalbigiisa, qalbigiisuna ma toosayo ilaa uu carabkiisu ka tooso. wax waliba waxa ay ku xiran yihiin carabkaaga ayaana meel kasta ku geyn kara. xibnaha oo dhan asaga ayay eedeeyaan subax kasta. qofkii carabkiisa ka adkaada waa qof haya hoggaanka nafsadiisa. hal kelimo oo aad ku dhawaaqdo ayaa ku geyn kara jahannamo salkeeda hoose. albaabka afaraad waa farjiga iyo rabitaanka jinsiyadeed. waa albaabka loo baahan yahay in aad xirto. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. dadku waxyaabaha ugu badan oo ay naarta ku galayaan waa afka iyo farjiga. waa meesha ugu dambayso la oran kara qofkaas nafsadiisa ayuu dayacay. qofka ku dhacaya sinada waa qof hanan waaya aragtiisa kadib markuu arkay suurad qurxoon, misna wuu hanan waayay fikirkiisa kadib ismuu xakameen. wuxuu bilaabay inuu raadiyo ama dalbo. saddexdaa albaab markuu furay ayay dhacday sinadu. markaas ayaad isweydiinaysaa, samankan maxay sinadu u badatay? waxa aan ku jirnaa xilli dadkii xumaay oo dhan hal qol la iskugu keenay, waana social mediaha, waa internetka. dadkii xumaay ayaa isku kaalmaynaya, iskuguna kaalmaynaya sidii ay u faafi lahaayeen xumaanta. waxaad arkaysaa dadkii wanaagsanaana midba meel ayuu ku mashquulsan yahay. waxyigelintii baa yar. marka ilaahay ha naga badbaadiyo qofkii afartaas albaab oo aan soo sheegna xira, nafsadiisana ka xira, kuna dadaala, waa qof samankan badbaadaya. maxaa yeele markaad social mediaha gasho oo facebook aad gasho, waxa aad arkayso waa araggaaga yoodaysan oo ku dhacaya sawirro iyo muuqaalo xunxun. kadibna fikirkii ayay u gudbayaan ilaa ay kula gaarto meesha ugu dambayso. macsida samankan daawada aad uga baxsan karto waa intaa. walaal ku dadaal, ummadana sii gaarsii si ay uga faa'iidaystaan. waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.